18 kan May waxaan rabnaa inay ka duwanaato bilihii hore dabaaldegyadii hore oo dhan waayo waxay uga duwanaanaysaa fariin weyn baynu doonaynaa adduunka inaan u dirno fariintuna waxay ku muujismaysaa markaynu soo bandhigno wax laga warramo adar madaxaaga sud oo luquntaada sud oo hadal oo afka taqaano ku hadal oo adduunka kula hadal nin walowba fariintaada gaarsi halkaad gaarsiin karayso waxaanaynu rabnaa inaynu ku dabaal degno nabadgeliyo midnimo dhexdeena ah iyo qarankan oo aynu adduunka tusno inuu dad leeyahay dad madaalayaal dad maseexdayaal dad raba in qarankani guuleysto adduunyadana dib kumaynaa soo kordhin Soomaaliland markii ay ka gooday Soomaaliya inteeda kale ummadaha adduunka qaar baa culaada soo kordhiya oo la isku dilaa sidii South Sudan ka dhacday laakiin inagu adduunka dhibaato kumaynaa soo kordhin nabad baynu ku soo kordhinay nabad baynu ku noolahay dimuqraadiyad baynu ku soo kordhinay xisbiyaynu samaynay dhaqaalahaynu kobcinay adduunka waxba inala qabanayn baynu dhisnay waana adag tahay adduunka in la helo qaran iska dhisma adduunka barbar taagnin laakiin Soomaaliland baa 10 ka dhigtay oo qortay oo magaalada Boorame gobolka Awdal isugu tagtay tashatay iyadu nabadan taagtay calankan dhidibtay qarankan dhistay ilaahay idankiina waxaan rajaynayaa inaynu u wada joogno halka aynu higsanayno Soomaaliland oo la aqoonsan yahay dadkeedu is jecel yahay gamcaha oo is wada haysto ilaahay idankiina waa halkii suugaanteena hore aynu ugu niriya qarankani waa inagu filan yahay haddaan loo kala abtirin yaynaan isu kala abtirin walaal aan ahaano gamcaha aan is qabsano aan feejignaano maalintan soo socotaana maalmaha ka duwanaato maalin dhulgariir dhaco soo buxu weynaado ilaahay idankiina waxaan ilaahay ka barayaa maalin la xasuusto oo aan la ilaawin inaynu ka dhigno insha Allah ta'ala